shirkani waa shirka hay-adaha garsoorka. Waxaa la yidhahdaa shirka garsoorka ee sanadlaha ah. Waxaa la qabtaa sanad walba bisha Janaayo ayaa la qabtaa oo ah bilowga sanadka. Waxaana loogu talagalay in warbixin lagu kala qaato sanadkii tegey, dacwadihii la qabtay iyo howlihii u qabsoomay garsoorka. Sidoo kale la isku diyaariyo ama la iska wareysto qorshayaasha sanadka cusub garsoorka uu higsanayo. marka ayaa ka soo qayb galay garsoorka dalka oo dhan miyaa ka soo qayb galay? Shirkan waxaa ka soo qayb galay dhammaan garsoorka dalka labadiisa heer ee heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka ah. Waxaa laga yimid dhammaan maamul goboleedyada dhan. Sidoo kale waxaa ka qayb gala bahda garsoorka, hay-adaha la shaqeeya ay ka mid yihiin booliska, asluubta, maxkamadda ciidamada qalabka sida, garyaqaanka guud, dhowraha iyo sidoo kale xafiisyada kale ee la shaqeeya maxkamadaha. Xiriir dhowna la leh maxkamadaha ayaa ka qayb gala. waa maxay qodobada sanadkan diiradda lagu saarayay shirkiinan garsoorka? Shirkan sanadkan waxaa la doortay halkudhig ah kaalinta garsoorka uu ku leeyahay dowlad wanaagga iyo la dagaalanka musuqa. Waxaa lagu soo qaatay marka cilmi baarisyo la xiriira halkudhigaas la qaatay oo ay ka mid yihiin kaalinta garsoorka uu ku leeyahay dowlad wanaagga iyo sidoo kale kaalinta garsoorka uu ku leeyahay ilaalinta hantida guud. Waxaa kaloo jira ilaa iyo 3 toobig oo kale ah qaadashada shaqaalaha rayidka, usinaanta iyo daahfurnaanta qaadashada shaqaalaha rayidka ee dowladda, iyo toobig kale oo la xiriira ilaalinta madax banaanida garsoorka, iyo mowduuc kaloo asagana ku saabsan hanaanka baarista dembiyada maaliyadda. shirkiinu marka uu soo dhammaado natiijo noocee ayaad ka filaysaan in ay shirka ka soo baxdo? Waxaan rajaynaynaa natiijo wanaagsan inay ka soo baxdo. 2 maalmood ayaa shirkan socon doona hadduu ilaahay insha Allahu tacaala. Sanad walbana waxaa ka soo baxa talooyin iyo falanqeyno muhiim ah oo garsoorka waxtar u ah. Shaqada markii la galana wax badan u noqdo hoga tusaaleyn iyo hagid, maadaama ay isugu imaanayaan dhammaan bahdii garsoorka, taladooda iyo aragtidoodana ay ku biirinayaan. marka la yimaado garsoorka Soomaaliya, dhanka qareennada oo kale, qofka marka uusan awoodin inuu qareen qabsado, nidaam noocee ayaa u degsan in dowladdu ay ka caawiso ay qareen u qabato? bal sawir guud naga sii dadka aan fahansanayn sida uu shaqeeyo habkaasi. Sharcigana sida uu yahay, qofka laba xaalaba waxaa muhiim ah inuu qareen helo. Hadduu dabcan asagu qareen qabsan karo, uma baahna in la caawiyo. Laakiin markuusan qareen qabsan karin oo uu sabool yahay, sharciga wuxuu farayaa hay-adaha garsoorka in qofkaas loo furo dacwad sabool oo laga dhaafo canshuurta dowladda. Sidoo kale in loo qabto qareen sabool loo qabto, waana la sameeyaa, maxkamaduhuna waa sameeyaan. Waxaa kaloo jirta kaalmo sharciyeed ee wasaaradda cadaaladda ay bixiso. Waxaa kaloo sharcigu dacwadaha ciqaabta waajib ka dhigaa oo mandatory ah, dacwadaha culus oo ay ka mid tahay dembiyada qofka marka loo haysto dembiyo ay ciqaabta yihiin dil iyo xabsi daa'im iyo ciqaabaha lamidka ah. Waxaa waajib ah oo lagama maarmaan ah in qofkaas loo qabto qareen haddii uusan markaa asagu qareen lahayn. Marka sharcigeena wuxuu aad iyo aad u ilaalinaa in qofka ama ha noqdo qof dacweysanaa, ama qof ha noqdo dacwadaha madaniga, ama ha noqdo qof eedeysana ah dacwadaha ciqaabta, inuu helo qareen matale ee ku matala maxkamadda horteeda si uu u helo maxkamadeyn cadaalad ah. waa maxay caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan ama la soo gudboonaaday garsoorka dalka, haddii mid iyo laba aad iga tilmaanto? Caqabadaha u waaweyn garsoorka dalka ee hadda uu la daalaa-dhacayo shirkana qaybo ka mida looga hadlay waxaa ka mid a madax banaanida garsoorka oo weli kala dhantaalan. Sababtuna ay tahay inaanan la dhisin ilaa hadda hay-addii ilaalin lahayd madax banaanida garsoorka oo ah guddiga adeega garsoorka. Sidoo kale wuxuu garsoorku weli caqabado ay ka haystaan madax banaanida dhanka maaliyadeed oo la xiriirta arrimaha maaliyadda, inuu madax banaanaado mushaaraadka garsoorayaasha iyo shaqaalaha kale ee howlwadeennada ka ah garsoorka, iyo sidoo kale bajetka ama miisaaniyadda horumarinta garsoorku u baahan yahay dhismayaal ha noqoto ama tababar ha noqoto ama haddii ha noqoto howlo kale ee horumarineed. Arrintaa dhankeedana garsoorka Soomaaliya waxaa ka haysta caqabad. Waxaa kaloo jirta caqabado la xiriira dhanka wada shaqaynta hay-adaha qaar, waxna laga qabtay waxna ay dhiman yihiin. Marka la fiiriyo ayagana marmarka qaarkood cuuriyaamiya waxqabadka garsoorka ama inuu shaqadiisa u gudo si hufan. ugu dambayntii, in garsoorka aad gaarsiisaan oo aad hoos u daadejisaan oo guud ahaan gobollada, degmooyinka ilaa iyo heer tuulo la gaarsiiyo, maxaa idinkaga qorshaysan? Garsoorka Soomaaliya sida la qaatay sanadkii hore ku waafaqeen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, waxaa la qaatay hanaan ah federaaleynta garsoorka Soomaaliya. Hanaankaas marka wuxuu qeexaa qaabka uu noqon doono ama qaab dhismeedka uu noqon doono garsoorka Soomaaliya markii la federaaleeyo kadib, taas oo kaalin muhiima siin doonta maxkamadda sare ee federaalka, balse garsoorku uu yeelan doono lakabyo amaba heerar kala duwan. Heerarkaas oo midba uu hoos tago maamul goboleedyada amaba dowladaha xubnaha ka ah federaalka, hadba dowladdii markaa la joogo ayna ka shaqaynayaan garsoorkaas qaab oo markaa loo kala maxalli ah ay u shaqaynayaan.